وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى كسي ورمر الهيد إيه حجابك إيه قرآنك إيه وجهك مقالده وإن له علماء ديار وإن أهرسلان magaalada Gaarisa waxaan dhihi lahaa waa magaalada kali culummadeeda waqti badan juhdi badan aqligooda iyo xoogooda iyo tacliintooda ay u galiyeen sidii magaaladan looga dhigi lahaa magaalo dacwo iyo diin Sheekh Abdullaahina warkaada waan maqlay ma ogolaanayna magaaladan inay dib u noqoto wanaagga ay ka gaartay diinta inay dib u noqoto ma ogolaan hadaan madax inay hor u sii socoto ma ogiye marka ninkii magaaladan joogo oo mukhaadaraad ku jiro oo macsiyo ku jiro oo wax kale ku jiro oo fidna ku jiro waxaan bari lahayn magaalada nooga bax dad muslimti ee magaalada ha noqoto magaaladii loo soo haajiri lahaa oo diinta iyo dacwada loogu soo haajiri lahaa وقت بقادتي انترو مدارس ومقالة كلي أو جامعة إسلامية أي لبا سدحيين ومقالة كلي انت سو مدارس وهو يوين كان قبلها نجا أي ماموران إجارة يلاي طبعا ومقالة كلي علماء ووين الصوماليات إلى خيرسية أي أسو هاجران أي إمادان أي دعوة أي دينتا أي كفافيان مركز عبد الله ما أقلانينو إن ندب النقطة إن ندب النقطة ما أقلانينو جامعة القرآن ما أنت شيخ عبد الوهاب يرجع الله شقيه سنة كسنة خدم بيابو قرأ يوسي كعيان ويسي ولا جرايان مركز يجنو حرب أنا المدارس حفيز كاس أدوينيسين اللو قبت مسابقة تولوينكا بلنبلا مسلاني دداب برا مدوغاشي لو قبتو ترتن هوسه ترتن كمركا كبعدي كان بشهر رمضان كان كسو ضمينه oo dugsiyada macallimiinta dugsiyada dhigaan seminar loo qabto oo la baro sidii quraanka tahwiijiisa iyo naxwigiisa loo akhrin lahaa ka jamaacadu xarana inay si weynaato oo maartay ay noqono inay xalfadan kaliya ay ku ekaato hada xafiis ay leeyihiin annagana garab baan u nahay ugu dambeyn maxaalaha madaxda مسلمين خاصة مدحت الصومالية دستور كوطن كان مركي لبدلي أولا كان دولة قبلات دتك دستور كاس قرين وحي من سنايين إنه قبل كستا اسمه مولو سيدا سالو كان
gobol inuu leeyahay baarlamaan asaga khaas u ah aqligii ka dambeeyay dawlad goboleed wuxuu ahaa inay dhaqaala iyo tala iyo tusaale iyo horumar lagu maamulo dadka meesha degan iyadoo la tixgelinayo diintooda dhaqankooda noloshooda horumarkooda baarlamaanka sare ee wadankana asaga uu tixgeliyo arrimaha khaaska u ah wadanka iyo qolooyinka badan ee wadanka degan laakiin nasiib darro waa baarlamaankan Gaarisa waxaa la rabay inuu sharciyaha uu mariyo uu boqolkiiba 70 ee noqdaan sharciya u danaynayo horumarka diinta islaamka Gaaris Wajeer Mandera Marsabit babi Marsabit laakiin Gaaris iyo Wajeer iyo Mandera maadaama dadka degan boqolkiiba 95 ay yihiin dad diinta islaamka aaminsan waxaa la rabay dawlad goboleedka iyo baarlamaanka goboleedka inay noqdaan dad waqti kasta sharci iyo dhaqaala iyo horumar iyo tala iyo tusaale sameeyaan ku salaysan horumarka bulshada maxay tahay waa bulsho islaamiye dhibka jira waxa weeye dadkii way ka baqayaan dad waxa jira muslimiin adduunka iyo wadankanba oo u arkaan oo yasaayiin diinta islaamka kariimka wuxuu arkay gabadhiisa hadday xijaab qaadato inay ceeb tahay wuxuu rabaa inuu fiiriyo reer galbeedka أنا هذا وزير وحنا هاي دفاع وحنا majority leader أولاً لكن وحنا هاي مسلم أولاً المسلم ودين الإسلام آمن سن يعني هاي وزير كمركز قرارة كإيمان مركز أنا وزير دفاعي تلابة دين توافق سرين مركز majority leader أنا برلمان كمان مريض حتى أنا قلها وزير هذا وحنوفر ليا ومدى كينيا لكن خاصة حنوفر يا أمة المسلمين يا أمة الصومالية ذا ودك الجود أنا كرسي أسكير ما فدي فكرة ديلا مسكح ديلا الردة مرة خجروا وزير وحنا هاي كينيانة لكن وإن قلبي جاي مسكح ديلا يكجرتو inaan kursiga ku fadhiyo anigoo mathalaayo diinta islaamka ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaalida